وهجاج داوضي هل كان شغله وزارة حرمت وزارة أمن الدولة بنتلان أو كنت على مجال الجروة مقعجة يا سعيد عبد الله waxaana ay fadhiya Saciid Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada ka soo fakaday dalka Eritrea oo ciidan ahaan dawladda Soomaaliya muddo 2 sano ka hor halkaas ayuu geysay Saciid ayaan su'aalo kooban weydiin doonaa oo fursad magacaygu horta waxa weeye Sakariye Bile Xasan Si no le ayuda a la fábrica el camión no está waxaan nahay dhalinyartii ka timaaday ciidanka Eritrea ee Soomaaliya ay u qaaday Soomaaliya awalka hore meel xarunta la dhaho hadda waxa sawir ka bixisaa qaabka fakateen xeradu waa xero weyn aad ba weynada xeradu waxa weeye waana ka soo dhacnay markaan ka soo dhacnayna waardiyaashii xerada joogay baa waxa weeye toosh nagu ifiyay waana bacsadeen marna dhagax baan iskaga dhignay marna geed baan iskaga dhignay marka waxa weeye tababarkeena bareen baan kaga soo baxnay